aad baan madaxweyne garabkaaga u taaganahay hambalyaanu ku leenahay waxaad naga dhigtay dad madaxooda sameeyay waxaynu ka marar dilacsanay in meydkeena la soo saari kari waayay EFC la'aan awgeed diyaaradaha la soo saari kari waayay laakiin maalintii ugu daran tahay ee ugu wanaagsan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaantiin baan salaamay reer Somaliland waxaan salaamayaa ummadda reer Somaliland waxaan salaamayaa ayo kale madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo dalkii Switzerland ku maqan oo qudbadiisii dhageystay oo si fiican oo wanaagsan oo sharaf iyo karaamo ku jirto nagu matalo maxay haydayeen uga hadlay shirkii aad baan madaxweyne garabkaaga u taaganahay hambalyaanu ku leenahay waxaad naga dhigtay dad madaxooda sareeyo maalintii ugu darantay ugu wanaagsan tahay maalmo dhaweytoole waxaynu ka marar dilacsanay in meydkeena la soo saari kari waayay EFC la'aan awgeed diyaaradaha la soo saari kari waayay laakiin maalintii ugu daran tahay ee ugu wanaagsan tahay waxa kale oo aan madaxtooyada qaranka ee ilaalisay sirtii qaranka awal waxa madaxtooyada ka socda dibadda laga maqli jiray inta 12 habeenimo aan la gaadhin laakiin waan idinku hambalyeynaa in aan sirtii ummadda reer Somaliland aad u hayseen inay xafidan tahay oo qarsoon tahay oo wax walba qabanaysan baynu saa u qarsoonaado oo asturnaado waayo de maxay haydayeen ummaddu hadaanay sirteeda qarsan ummad ma aad baan idin hambalyeynaa ummadda reer Somaliland baan hambalyeynaa aad baan u faraxsanahay anigu kullayba waxa ii muhiima qarankayga ayaa ii muhiima dadkiisa ii muhiima dalkayga ii muhiima waxaan wax ku ahay aan sahar halgan ku ahay waa qarankayga markuu qarankaygu qurux badnaado waan qurux badanahay sharaf baan leeyahay karaamaan leeyahay laakiin qarankaygu hadduu wiiqmo anna waan murugoonayaa waan waxa weeyaan waxaan noqonayaa qofaan wuxuu ku faana lahayn laakiin maanta kalena madaxaana furan Soomaaliya heesti aad iyo aad baan idin salaamayaa ninkii ciil ku raagiyay kii caroon lahaayo calankaygii waa ka Somaliland way tagtay insha Allah saasay ku soconaysaa Somaliland ma hadda dadka nacab laakiin nacaybka waa nagu abuurteen hadaatiin maxay haydayeen Soomaalitiin waanu idin baranay waanu idin aragnay mar horaan anigu idin arkay laakiin dadkayga dad wanaagsan oo mudday ku qaadatay inay idin bartaan aad baan idin hambalyeynaa dhamaantii bare Somaliland meel joogtaanba aad baan idin hambalyeynaa oo aad soo dhunkanaya